والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صباح وناكسن ما الظهر وناكسن ومالين عصب ومالين ثلاثة بشتايا فريق طبعا وحنو يدكو ورجلينا إن دمان قوبيه كون يلح بقولي يلا بيا فرتن كي قوبود بكسو هيدين دقموين كي أي مركو هركب بحين سنة بتقليه وآن وحسدمين أما وحقل ديمان أما بابور كتشبين أما آن محايدي وحبكها عرين أما الروب قبسن أما وح كوري ممشرو لمان كون يلحدي بقلبا يلا بيا فرتن كي بوي سو قارين دقموين كي أي مركو هركب بحين ودوكتينو waxaynu leenahay 22 degmo doorasho 22kiiba maanta way shaqeynayaan subaxana way bilaabeen inay tiradii bilaabaan sanaaduuqdii la furo mar labaad la bilaabo waayo waa la soo tiriyay oo goobaha waa lagu soo tiriyay si aynu u aragno maxayday ama aynu uga warhayno waxaynu marnaa marxalado ayaynu marinaa tirada marxaladahaas oo ah in waa masiirkii qaranka ku jiray in taxadar oo markasta ay marxaladahaas marxaladba marxalad saxdo goobtii waa laga soo saxay gudoomiyihii goobtu wuu soo seexay maraaqibiintii ama wakiiladii xisbiyada u joogay way soo saxeexeen intooda badan haddii cabasho jirtana wuxuu saxeexayaa wakiilka xisbiga cabashadii foomka cabashadiina wuu soo raacay iyagoo wada jiray soo baxeen baabuurkii markii hore qaaday baana soo qaaday haddana waxay yimaadeen degmadii xalay si nabadaana loo wada yimi si aan idiin sheegayo tiradii way bilaabantay marka laga reebo degmadan Hargeysa oo aad ogtiin degmada Hargeysa waa degmo baaxad weyn leh marka iyada halkaynu ugu xigtaan ayaanu xalay ku soo wada xareynay markay ku soo dhamaadeen maadaama ay badan yihiin shaqaaluhuna soo jeeday shaqaalaha degmada dabadiisa ka yimi ama banaankiisa ka yimina ay dadaalan yihiin waxaanu maxayde markaan ku xareynay ugu yara tala galnay inay gaab yar soo seexdaan markay soo seexdaan galabta iyadana la bilaabo sidaasaan horta maxayde warka ku qaadanaysaan in degmooyinkii inoo wada bilaabmeen oo ah maxayday stebkii labaad ama marxaladii labaad ee lagu haddana saxayey ama lagu tirinayey tiradii goobta ka timiye rasmiga ahayd lagu saxayey haddii qalad jirana halkaa lagu saxayey haddaanu qalad jirinna la marinayey waxaa kale oo jirta markay soo xaroodaan dee sanaaduuqda qaarna waa qaar la soo daayay oo wakiiladii xisbiyadu saxeexeen oo yidhaahdeen annagu waanu ku kalsoonahay tirada halkaa lagu tiriyey qaarna waa qaar dee aan cabasha ka timi ama xisbi ha ka timaado ama laba xisbi ha ka timaado markaa cabasha hadday jirto meel gooniyaa la dhigayaa degmooyinkii meel gooniyay dhigeen wixii cabasho ah laakiin wareerkana soo gaarhaya cabashadu aad bay u yartay aad iyo aad oo dee systemkan aynu raacnay habkan aynu dhignay ayaa yareynayay marka horeba cabashada sidii berigii hore maaha cabashadu way nagu yartay taas intaasaan kaga baxayaa kolba dee waanu idinla socodsiin doonaa halkay xaal marayaan degmada dhammaatay imanka wixii ka dambeeya degmaanu idinku sheegi doonaa inay dhammaatay in tiradii socoto waxaanay ku soo xaroon doonaan markaa goboladoodiibay iyaguna dub ugu noqon doonaan oo 6dii gobol doorasho ayay dub haddana u marayaan waxaasoo dhan waxaynu uga dan leenahay dee waa masiirkii qaranka waxaynu ka hadlaynaa waa doorasho madaxweyne waxaynu ka hadlaynaa markaa si taxadar leh oo aana waxinagaga soo noqon ayaynu hawsha u wadaynaa idinkuna waxaanu idinkaga codsanaynaa inaad nala jaan qaadaan oo aan idinaga dheerayn hanaga degdegina nala jaan qaada nala socda warkuna rasmigiisu waxa weeyaan warka ka soo baxaya komishinka doorashada waa warka afkayga ka soo baxaya durbabo waxaanu maqlaynaa baraha internetyada warar maxayday soo gelaya
ayaana soo gaargaarhaya markaa taana waxaanu ka odhan lahayn fadlan haddaad tihiin saxaafadda iyo hadday ummadda ama shacabweynaha somalilandba waxaanu ka codsanaynaa inaan commissionka laga hordegdegin cawaaqib xumada keeni karta haddii laga hordegdegana waad garanaysaan waa waxaanu ka hortegaynay inaanu social mediahan idhaahno noo yara hakiya qolooyinkan maxayda ina siiya sababtaan u lahayn waxa weeyaan inaanu ka ilaalino wax turxaana haba yaraatee inay doorashadeennaa soo dhex gasho ay carqaladayso waayo hadday soo dhex gasho ay carqaladayso dee nolosheennii bay saameyn ku yeelanaysaa waad ogtihiinoo maanta ma qixi karno ma burburi karno inaynu maxayda 25 sannadood ama 30 sannadood meeshaynu ka nimi haddana dub uguma noqon karno waad arkaysaan hareeraheenna waxa dab ka socda waxaanu diidaynaa tii ka dhacday kenya oo kale inay ka dhacdo ilaahay waanu ka baryaynaa inaanay middaa iyo mid u dhow midna inaga dhicin weli wadnaha farta inaynu ku hayno si wada jiro u wada shaqayno is-ixtiraamno aad ku ixtiraamtaana shaqada commissionkaa shaqadan iska leh walaa qof kalaa iska leh walaa xisbi baa leh walaa waxa leh maxayde website qof ma laha ka daaya fikirka opiniumka ah ee la leeyahay gobolkii hebelna waxa ku badiyey hebel ama xisbi hebel baa ku badiyey gobolkaana xisbi hebel waxaan soo saaray percentage-kii intaasay kala marayaan dee waxaas waa waxayna khalkhalinaya dan inoo maaha danteena aynu raacanno aynu ka ilaalino ilaahay baa inoo gargaaray ilaahay subxaanahu watacaala aynu maxayda u mahadnaqno markii horeba wadnaha farta lagu hayo wax laa doorashadu taloma inoo dhacaysaa dee sidaynu uga soo gudubnay quruxda badnaydna waad aragtaan adduunkii oo dhan baa idin mashiirtay adduunkii oo dhan baa idiin soo jeedaa dee ma waxaad u dulqaadan kari laadin 4 cisho 3 cisho 5 cisho maximum ugu badnaan u dulqaataynu leenahay ka daaya dadka ha qixinina calooshooda ha qulbinina ha ku celinina waxaynu soo dhaafnay 12kii 11kii iyo 10kii Noofembar halkaynu ka nimi ha ku celinina hore aynu uga soconno annagu waxaan leenahay hore aynu ka soconno waad mahadsantihiin